بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها أن جعلنا كسو دوادا النور تي في على بوحة أي إذن سوقت بساء النور تي في برنامج ديني ما أنت مالين سنين تاريخ هجري أي كوباغن تهي لواتن إساقال بيش تدوات كون 444 dhanka miilaadigana sidoo kale waa 20 bisha 2 2023. maanta Al-Nuur TV waxaa inoo marti sheekheena Sheekh Maxamed Sheekh Buraale ee ku magac dheer Sheekh Boqolsoon oo noo soo huray waqtigiisa khaaliga sheekhana waan kaga mahadcelinaynaa sheekh ku soo dhawaaw Al-Nuur TV. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لما أحبابتا وان سلام يا خاصة تيفي Al-Nuur sidaas oo kale mahad celintiini waa idinka gadoomayaa idinkana sidaas oo kale aad u mahadsantiin. Assalaamu alaykum waraxmatullaah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إن شاء الله waxaan weydiin doonaa su'aalo dhowr su'aalahaasna waxa ay ku saabsan yihiin ijaazada. sheekha waxaan weydiin doonaa su'aasha koowaad waa sidaan ay u dhacaysaa waa maxay ijaazo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ويقول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وما حسنتهي أن سؤال شاء ويديسي وسؤال آد مهم وقالئ مناسب يعني مناسبات ديدنا ku haboona lahay dadka mashaayikhda kubaarta cilmiga oo u saaxibay ay ku habooneed in la weydiiyo laakiin xasba istidaacatina baan ugu jawaabi doonaa. ijaazadu waxa waaye waa mowduuc aad iyo aad aham u dadkana zamankan hoga ay ku badatay maxaan ku raahdaa fahamkoodii in ay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn ay u fahmeen. taas waxa way bedelkeedii kitaabka Ilaahay iyo sunnada nabiga ayuu laga qaadayo. culamaa islaam ijaazo waxay tahay waxay ka hadleen culimadu waxa la yiraahdaa istilaax cilmi ibtakarahu ulama ala yiraahdaa waa istilaax horta culimada ay sameysteen oo bilowdeen ma aysan bilaabinin yani tadwiinkiisi iyo qoraalkiisi shay kastaba waqti baa la tadwiiniyaa. علماء الإسلام باتدوينيسي وقتها علم الدراية لتدويننا علمها فنها مصطلحة أو كلا مركي الغرايي أيام حنكر هذا أسيغنا تدوين انتاس بلابطي ويعني وإجازة وش أقلاشو ويا في صوماليغا هدي لي راهدوا أقلاشو إيوه إذن قفك الله إدمايو shayga uu ku dhex jiro ama fanniga ha noqdo culumta sharciga loo ogolaado inuu maxaan ku raahdaa mudarris uu ku noqdo ama uu gudbiyo fannigaas. sida dadka hadda zamankan joogaba shahaadooyinka ay isu siiyaan oo kale waa shahaado siin gadoonsiin qofka la gadoonsiinayo culumta uu fahmay in maxaan ku raahdaa la gadoonsiyo tadwiininteeda ama maxaan ku raahdaa tadriisintiisii. taasna waxay ka soo qaateen culamaa islaam waa
ayadoo qur-aanka ilaahay iyo sunnada nebiga marjac u yahay waa abtir aakhiro waaye. oo qofka maalan markii la dhalo waalid buu yeelanayaa, waalidkiisa nasabka ayuu ku abtirsanayaa. tanna marka waa abtir diineed waaye, sidaan ka fahmi doonno markaan gudaha u galno silsiladda qofka nasabadiisa diineed oo lagu sugayo waaye. marka taas waxaa daliil u ah ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigeyna muxamed sala allahu wasalam wabaarig calayhi waa soo diray. watii u yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira wadaaciyan ila allaahi biidnihi wasiraaja muniira. marka waa daaciyan ila allaahi biidnih. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la dhalayay nebi buu ahaa, laakiin calaa ra'si 40 sana waxaa loo idmaday rasuul inuu noqdo. rasuul buu noqday, ilaahay subxaanahu watacaala idinkiisuuna ugu noqday. wadaaciyan mid u yeero buu ahaay ilallaahi ilaa tawxiidillaahi biidnih, ilaahay idinkiisii. marka waa idin ilaahay kiisa ah ayuu risaaladaas uu ku gutay nabiga calayhi salaatu wasalaam. ijaazada marka asalkeedii waa midaas ogolaanshada ay tahay qofka loo ogolaado in maxaanku idhaahdaa uu u gudbiyo shayga uu markaasi ka soo naqliyey sheikhiisii ama maxaanku idhaahdaa uu ka soo qaatay in loo ogolaado inuu gudbiyo. intaas uun waaye. axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam liyuballighi shaahidu minkum alghaa'ib. kiinaan maxaanku idhaahdaa maqan xaadirka ha gaarsiiyi kan maqan. waxaa laga yaabaa kan maxaanku idhaahdaa jooga inuu ka xifdin badiyo midka maqan. marka saas darteed waa amar nabiga calayhi salaatu wasalaam ka yimid xaggiisii. ijaazada waa noocaas. marka waa bilaabasho oo isdilaax cilmi ah, ibtakarahu lculamaa aa la yidhaahdaa. waa ogolaansho waaye la isu idmo in maxaanku idhahdaa shaygaas la gudbiyo. muhiimadda waa intaas. bilahi towfiiq. maasha allah sheekh, ajir xasanaad iyo aan la soo koobi karin ilaahay xaggiisa allah ka siiyo. su-aashiisa waafaqsan oo aad iyo aad noogu dharjisiiyey. daawadayaashana iyo dhegeystayaashana waxaan filayaa in ay si fiican u fahmeen. waxaan weydiin doonaa sheekh su-aasha labaad. sheekha waxaan ku weydiinaynaa shareecada islaamka maxaa ay ka qabtaa ijaasada? jazaaka allahu khayran. shareecada islaamka ijaazada waxay ka qabtaa shay mubaax waaye oo bannaan. maxaanku idhaahdaa haddii aysan mubaax ahaa lahayn hadda ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa umaba soo idmeenba, maba usoo idma lahayn. marka ijaazada gudbinteedii markii laga hadlaayo culamaa ul islaam sida maalanba mashaa'ikh fara badan ayaa soo naqlinaysa ijaazada ogolaanshaheedii. uu ka mid yahay tusaale ahaan hadda jalaaluddiin cabdiraxmaan bin abi bakr suyuudi kitaab uu ku leeyahay manaahilul yani safa fi takhriiji axaadiisi shifaa, kutub la yidhaahdo uu uga hadlaayo. wuxuu ku soo guurinayaa culamaa ul islaam caamatuhum wuxuu leeyahay inay mubaax tahay bay banaynayaan. wuxuu leeyahay kutubka la yidhaahdo tuxfatu saalikiin wa dalaalat yani saalikiin oo uu leeyahay nin la yidhaahdo maxamed muniir, asiga firkiisu culamo badan buu ku soo naqlinayaa. ay ka mid yihiin yani sida ibnu athiir oo kale, sheekha la yidhaahdo rag fara badan oo culamaa ul islaam ka mid ah, oo ibnu salaax uu ka mid yahay maxaanku idhaahdaa ibnu daahir assalafi, abu daahir ninka la yidhaahdo assilafi, bayhaqi iyo ibnuljamaaca. sidaas ayay maxaanku idhahdaa dhammaantooda uu ka soo naqlinaya. uu leeyahay in ay mubaax tahay. weliba fasal bay u guntanayaanoo waxay leeyihiin alraddi calaa man ankara alijaaza. mashaa'ikhdaas faraha badan marka iyagoo ka soo naqlinaya ahlu cilmiga ah sida ibnu athiir,
abu daahir asilafi, bayhaqi, ibnu salaax, ibnuljamaaca iyo rag fara badan oo imaamu nawowi uu ka mid yahay lafirkiisa kitaabo badan uu ka soo naqlinayo. marka waa xagga sharciga ayada waa jaa'is waaye. waxa waaye qofku maadaama uu gudbinayo shareecada islaamka shayga uu gudanayo ay yihiin waa wax waajib ahoo maxaan ku idhaahdaa sharciga markaas xaaladda uu marayo ayay mari doontaa. haddii qofka maalanba mansilka uu joogo meesha uu joogo qof asiga lamid ah la waayo watii ay waajibku ahaa jirtay qofku inuu mas'aladaas diineed qof iftooda haddii la waayo asiga keliya uu joogo waajib bay ku ahayd. marka sidaas oo kale sharciga unbay la socon doontaa. marka waa shay mubaaxa ah oo jaa'is ah waaye insha allahu tacaala. wabilahi towfiiq. maasha allah sheekh soo nagu fiican noogu jawaabay. maasha allah wuu ku mahadsan yahay. ajar xasanaadna allah ka siiyo. daawadayaashana inay fahmeen ayaan filaya insha allah. sheekha waxaan ku weydiinaynaa su-aasha saddexaad oo ku saabsan ijaasada. mise qaab ayaa loo dhiibaa ijaasada? jazaaka allahu khayran. ijaazada qaabo badan bay leedahay oo loo bixiyo. yacni markaas wadciga qofka uu marayo haddii uu yahay nin qaari'ul qur'aan ah, haddii uu yahay nin maxaan ku idhaahdaa culumta sharciga bartay sidii fanniga axaadiidta oo kale, qofkii uu soo qaato maalanba qaababka loo bixiyo dhowr nooc bay ku sheegaan culummadu. in qofkaas loo idmo kitaabka asiga uu akhrisanayo, sidii markuu sheikh uu ku dul akhriyo oo kale, alqiraa'a cala sheekha la yidhaahdaa. markuu ku dul akhriyo oo laga dhegaysto sheikhiisa uu ka dhegaysto, markuu yacni laga taskiyeeyo in loo idmo. ama maxaan ku idhahdaa simaac sheikhiisa uu ka dhegaystay kadibna loo ijaaso siiyo. ama ma ahee qaybta saddexaad waxa waaye qofka asigoon hadda kutubkaba akhrisaninba in la yidhaahdo fasax buu kuu yahay, kitaabkaas ayaan kuu ijaaso siiyey inaad akhriso. qaababkaasna waa loo bixiyaa. ijaazada dariiqada ayaa ayagana maxaan ku idhaahdaa culamaa ul suufiya ayagana ay baxsadeen oo markaas aysan ka marnayn middan oo kale ay tahay silsiladda ay dhiibayaan. waa midda silsiladan hadda la dhiibayo qofka rijaasha qofka uu ka soo wariyey kitaabkaas uu ka soo qaatay shiikhiisa kale qaabkaasna waa loo dhiibaa ijaazada. marka insha allahu tacaala kayfiyaad fara badan kalena way leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan sidii hadda maalanba mashaa'ikhda kubaarta ah ay kasoo kutubadooda ay kasoo ikhtibaasayaan, sidaas ayay tilmaamayaan. marka insha allahu tacaala wabilahi towfiiq. maasha allah sheekheena ajir xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay agtiisa allah ka siiyo. daawadayaasha iyo dhegeystayaashana inay ay fahmeen ayaan filaya insha allah. su-aasha afaraad ayaan sheekha aan weydiin doonaa insha allah oo ku saabsan ijaasada. marka ay dadka indhaha ay laabayaan marka ay qaadanayaan ijaasada maxaa ku soo arooray? aad iyo aadaad u mahadsan tahay. ijaazada markii la qaadanayo indhaha laabideedii waxa waaye adila ka soo aroortay fara badan. indhalaabadu keliya ma aha ayadoo fardi ah ijaazada qofka loo siiyo, ayadoo maxaan ku idhahdaa ijtimaaci ah, labadaba way dhacday. nabiga calayhi salaatu wasalaam bay ku dhacday sala allahu wasalam wabaarik calayhi. axaadiid fara badanna way ka soo aroortay. tusaale ahaan haddaan soo qaadanno hadda xadiidkii abi yacla shadaad bin aws oo maxaan ku idhaahdaa uu ka warinayo aabbihiis, xadathanii abi shadaad bin aws wa cubaadat bnu saamit xaadirun yusadiquhu uu yidhi. aabbahay baa ii warramay buu yidhi cubaada binu saamit asigoo oo maxaan ku idhaahdaa meeshaasna joogo oo u rumaynayo. kunnaa cinda annabiyi sala allahu calayhi wasalama. waa markii hadda ijtimaaciga ay tahay waaye
asxaabta rasuulka sala allahu wasalam calayhi ayagoo kulansan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ijaazada uu siinayo. yacni hadda dadku waxay moodayaan ijaaza siintu ma nabiga sal alla alay wasalam sida hadda qofka u dhahay ay dadkan samaynayaan miyuu u sameeye oo kale bay dhahayaan. laakiin waxaad ka fahmi doontaa axaadiista ayaad ka fahmi doontaa. nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi hal fiikum gariibun, wax qof oo gariib ah ma idinku jiraa buu yidhi asxaabtiisii, oo macnaha asagoo ula jeedo ahlu kitaabka, qolada ahlu kitaabka ah. ahlu kitaab miyaa idinku jira? faqulnaa laa yaa rasuula allah, wax nala joogo oo aan anaga ahayn ma jiraan buu ayaa niru yidhi macsharu saxaaba haddaan nahay. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray biqalqi albaab, fa amara biqalqi albaab, albaabkii in la xiro ayuu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam. wa qaala wuxuu yidhi irfacuu eydiyakum, gacmihiina kor u qaada, waquuluu laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah dhaha. albaabkii masaajidka baa la xiray, wuxuuna ku yidhi laa ilaaha ila allahu dhaha. waxaan ku idhaahdaa irfacuu eydiikum waquuluu laa ilaaha ila allah, farafacnaa eydiina saacatan, gacmahayna ayaan saacad kor u haynay bay. cubaad waa shadaad binu aws, asiga ayaa maxaan ku idhahdaa laga warinaya, wiilkiisana ka warinaya. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam markii gacmaha saacad aan gacnaha kor u haynay wuxuu yidhi alxamdu lilaah, ilaahay oo adaa mahad iska leh buu yidhi. innaka bacadtanii bihadi alkalima, ilaahayu waxaad ila soo bixisay kelimadan oo tan ah. wa amartanii bihi, waan i amartay inaan jannata calayha, jannadan maxaan ku idhahdaa waa ii ballan qaaday buu yidhi. wa innaka laa tukhlifu lmiicaad, ma khaliif yeelisid buu yidhi ballantaada. uma qaalna wuxuu yidhi abshiruu bishaaraysta fa ina allaha qad gafara lakum, ilaahay wuu idin damba dhaafay. midaas waxaa waaye waa jamaaca. ibnu xajar asqalaani marka wuxuu leeyahay xadiidka waxaa weriyey imaam axmed bin xambal biisnaadin xasan buu ku weriyey, dabaraanina waa weriyey. wuxuu kaloo ziyaadiyey imaamu dabaraani farafaca rasuul lahi sal alla alay wasalama, nabiga gacmihiisa ayuu kor u qaaday, warafacnaa annagana koran u qaana. qaala fiihi wuxuu yidhi dacuu eydiikum, gacmihiina hoosuu dhiga, wa abshiruu bishaaraysa fa ina allaha faqad gufira lakum, waa la idin dambi dhaafay. sidaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. midaas waa ijtimaaciga markay ahayd waaye, oo asxaabu rasuulillaahi sala allahu wasalam wabaarik calayhi, oo maxaan ku idhaahdaa ay dhacday ijtimaaci ay tahay. jamaacatu saxaaba ayaa sidaas maxaan ku idhahdaa lagu ijaasa siiyey. midda kale oo qamdul cayneynka ah, nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid saxaabigii jaliilka ahaa oo maxaan ku idhaahdaa wiilkiisana ahaa oo walaalkiisana ahay, wa sayidina cali bin abi aalib karama allahu wajhahu radia allahu canhu. sa'ala nabiyu sala allahu alay wasalam biqowlihi ya rasuula allah dullanii buu yidhi itus calaa aqrabi turuqi ila allah, waddada ilaahay loogu dhawaado tan ugu dhawaan badan, wa ashalihaa midka ugu sahlanoo can cibaadihi addoomankiisa ilaahay uguna sahlanoo maxaan ku idhahdaa wa afdalihaa cindahu agtiisana ugu fadliga badan. faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi calayka bimudaawamati dikri illaahi siran wa jahran, ilaahay dikrigiisa waa inaad daa'imtaa siran wa jahran. faqaala caliyun wuxuu kula annaasi daakiruuna, ilaahayow ilaahay rasuulkiisiyow dadka maxaan ku idhahdaa kulligood ilaahay waa xusayaane, fakhasanii bishayin, wax un iigu gaar yeel aniga, wax gaar ah ii sheeg. qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam afdalu maa qultu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah buu yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam. anigii ambiyadii ilaahay naga horreeyey wax u fadli badan aan idhaahno kelimada laa ilaaha ila allahu. walow ana asamaawaati waalardiina fii kafatin haddii la yeelo, hal kafad haddii la yeelo, walaa ilaaha ila allahu fii kafatin la yeelo, oo macnaha hal miisaanka kafadan laa ilaaha ila allahu la saaro, khalqigana cirkii dhulku wixii ku dhex jiro kafadan la dul saaro, la rajaxad bihim, ayada la raajax lahayd noqo lahayd buu nabigu alayh salaatu wasalaam. wala taquumu lqiyaamatu, qiyaamana qumi mayso, xadiidku waa dheer yahay, calaa wajhi اlardi man yaquulu laa ilaaha ila allah. uma qaala caliyun wuxuu yidhi fakayfa adkuru, sidee baan u xusaya rasuulka allow, marka kelimada sidee baan u dhahayaa. waa maxalu shaahidka annaga aan u dan leenahay waa intaas. wuxuu yahay nabigu alayh salaatu qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama gamid caynayka,
labadaad indhood laab buu yidhi gamid caynayka labadaad indhood sayid caliyow laab wasmac minii anigana iga dhegayso laa ilaaha ila allah 3 مرات 3 jeer buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam uma qulhaa dheh buu yidhi sayid caliyow 3 مرات 3 jeer dheh wa ana asmacu anoo maqlaaya dheh indhihiisna waa laabiyin ogow uma facala dalika sayid cali wuu sameeyey indhalaabida birafci sawti asagoo codkiisa kor u qaadaya laa ilaaha ila allah markii loo laqinay ka daba dhahaya nabiga calayhi salaatu wasalaam idan marka waxa waaye xadiidkaas waxaa soo saaraya imaamu dabraani bazaarna waa soo saarayaa sanad wanaagsan buu kusoo saaraya oo xasan ah darajadiisi xasan ay tahay marka xadiidku shawaahid fara badan waa leeyahay indhalaabadu meeshaas ayaa asal u ah culamaa ulislaam waxyaabaha ayaga ay noo jideeyeen ma aha wax meel laga soo qaatay waa wax sugnaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam marka mashaa'ikhda xadiidka ragga warinayaan waxyaabaha ay ka wariyeen waxaa ka mid ah in ay yidhaahdeen riwaayad kale sayid cali bin abi aalib markuu 3 jeer muqmidan caynayhi raafican sawtahu wannabiyu sala allahu alay wasalam yasmacu dhegaysanayo uma laqanahaa caliyun lilxasan albisriyi sayid cali wuxuu u laqinay kelimadaas xasanulbisri buu u laqinay xasanulbisri waa taqaaneen taabic jaliil buu ahaa xasanulbisrina wuxuu u laqinay ninka la yidhaahdo alxabiib alcajami xabiib cajami buu u laqinay asigana xabiib cajami wuxuu u laqinay daa'uud taa'i uma macruufu lkarkhi sidaas ayay ku socotay ilaa siri siqdi ay ku timaado junayd albaqdaadi ilaa ay ka soo gaarto mashaaikhdayna kiraamka oo haddeer annaga aan joogno silsilada sidaasay ku socotaa marka qamdul caynaynka waa mid u khaas ah sayidina cali bin abi aalib karama allahu wajhahu waradia allahu canhu asiga ayaana la amray hada yani adila fara badanna way leedahay oo hadda aan la koobi karin maqaalaat ulculamaa fara badan way leeyihiin kutubada ay wada naqlinayaanna hadda insha allahu tacaala kulligood waxaa ka mid ah manaahil safaad hadda aan soo sheegaynay fi takhriiji axaadiis shifa imaamka oo uu leeyahay jalaaludiin suyuudi waa soo naqlinayaa tuxfatu saalikiin oo maxamed muniir uu leeyahay waa soo gurinayaa waxaa soo raraya maxaan ku idhaahdaa shiikha la yidhaahdo baaji sulaymaan bin khalaf albaaji sheekh la dhihi jiray asila firkiis abulwaliid ninka loo yaqiinay kitaab ayuu ku soo saaraya oo asiga uu leeyahy alirshaad fi macrifati usuul maxaan ku idhaahdaa walwijaaza kutub la yidhaahdo uu leeyahay alinshaa yani fi macrifati alusuuli walijaaza kutub la yidhaahdo uu ku leeyahay oo maxaan ku idhahdaa uu ka soo naqlinayo yani xadiidkan marka kulligooda waxay sheegayaan xadiidkaas inuu darajatulxasan uu joogo wabilahi towfiiq sheekheena waa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waxaa hadda aan soo gaarnay gabagabadii ayaan soo gaarnay su-aali weydiintii aan sheekheena aan weydiinaynay ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin ilaahay allah ka siiyo dhammaan daawadayaashana iyo dhegeystayaashana waxaan filayaa in ay si fiican ugu dhargeen su-aasha ugu dambeysa insha allah aan sheikha aan weydiin doono waxay noqon doontaa ijaazada maxaa faa'iide laga helaa alxamdulilah faa'iidadeeda aad iyo aad bay u fara badan tahay wax meesha laga soo koobi kara ma aha khulaasadeedii waxa waaye qofku markii kelimadaasi dhab ahaan uu u yaqiiniyo qalbigiisa ikhlaaska ay ku degto kelimada horta la isku ijaasasiinayo waa kelimatu tawxiid markii qofka uu ku dhawaaqo ama loo laqino qalbigiisana uu bisidqin iyo maxaan ku idhaha biictiqaadin uu kaga dhawaaqo wuxuu ku gaarayaa darajo la yidhaahdo darajatulcubuudiya waa darajatulixsaanki khulaaso ahaan markii lasoo koobo darajatulixsaan buu ku gaarayaa darajatulixsaankan waxa waaye sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak darajatulcubuudiya dhab waay oo ilaahay subxaanahu wataala laxdaba inuusan qofkaas qalbigiisa uusan faaruqin in maxaan ku idhaahdaa xaafida samcihi uu noqdo
وبصر التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث القدسي إلهي وكير سبحانه وتعالى قفك مركا درجة الوحوغاريا رضا إلهي قبولك إنو كهلو قبول إنو هلو إلا المركا أدو إلهي أدون جعلاده وتنبغ عليه الصلاة والسلام وتلمامي جبريل إنو أنادين أيو إلهي جبريلنا وحو أنادين يا أهل السماء أيو أنادين يا أهل السماء مركي أو أناديو وحو ليها إن الله أحب فلان ابن فلان فأحبوه أهل السماء فيحبون أهل السماء أهل السماء يجعلان يا مركاسو النبي عليه الصلاة والسلام وحو يرادنا فينزل القبول على أهل الأرض أهل الأرض بقبول لو سودجنا يا قفكم مركا درجة أوغاري قبول بوغاريا waxaa lagu shaabadaynayaa shakhsigaas oo kelimadaas ku dhawaaqay natiijadeedii uu gaaray in dadku ay jeclaadaan kii nacab hataa nacaybkiisu qalbigiisu ugu shaabadaysan yahay kii jecelna jacaylkiisu qalbigiisu ugu shaabadaysan yahay marnaba ma faaruqayaan kii wanaagsanna wanaag buu xarabkiisu ku xusayaa uu leeyahay sheekh fulaan buu ku hayaa kan kalena maxaan ku idhaahdaa asagoo maxaan ku idhahdaa nacab ayuu sheegayaa oona marnaba qalbigiisa uusan ka foqaynin sababoo shaabid ilaahiya ku dhacday dabaasada haddii qalbigiisa ay ku dhigto asagoo nacayo wuxuu leeyahay sheekh fulaankii sidaas iyo sidaas ahay uu leeyahay asagoo ku caynayo yacni carabkiisa ma cishan karo waxaa la diidayaa biri qiyaamo in markhaati carabkiisa looga dhigaa la rabaa ilaahay uu leeyahay yowma tashhadu calayhim alsinatahum wa aydiihim wa arjuluhum carabkiisa biri qiyaamo inay markhaati u noqoto uusan dhihinba sheekhaas aniga ma ogeyn inuu yidhaahda la diidan yahay xataa asagoo radinayo oo caynayo ayaa lisaankiisii marnaba uusan faaruqaynin marka qabuulkaas uu helay dartiisii natiijada uu ku gaaray oo ilaahay subxaanahu watacaala darajatul ubuudiyya uu gaarsiiyey addoonkaas ayuu ku mutaysanayaa yacni mansilkaas marka waa kelima aad iyo aad faa'iidadeeda fara badan tahay oo annagu jahligeyna iyo cilmigeyna yacni qaasirnimadiisa aan ku soo koobi karin in sha allahu tacaala wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أجر حسنات الله كسي أن سوكوبي كرين مرلوات شيخ آدي آد أيو أغمه سنيهاي أجيبتانكي أن أجيبي ما شاء الله أجر حسنات أن سوكوبي كرين إلهي الله سيو دمان إن داودياشا يو ليستياشا با هل كان وحا إنو إك سؤاله وشيخ أن ويدينيني إن شاء الله مركل يو كل ونكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته